soomaalida ku nool caalamka daafiisa kala duwan gaar ahaan midda ingiriiska waxaan leeyahay Soomaaliya isbedela ka socdo isbedelkaasina waa idin baahan yahay idinku hasuginina dalka Soomaaliya qurxoonaado oo aad ku noqotaan waxaan leenahay aan wada quruxsana dalkii soo noqda fursadaha ganacsiga iyo fursadaha shaqo oo aad ku haysataan Europe iyo America iyo khaliijka iyo Afrika intaba waxa aad iyo aad uga balaaran kuwa suurtagalka ka ah Soomaaliya laakiin dadka keenay rabtaa dadkii ka keeni lahaa waa adinka waxaan leeyahay soo noqda dalkiinu waa idin baahan yahay idinkuna waad u baahan tihiin guud ahaan haddii masaalix gaar qofka fikiri jirana maanta Soomaaliya meel ka maslaxad badan oo ka fursad badan caalamka ma jirto marka waxaan leeyahay soo noqda annaguna waxaan nahay dawlad idin soo dhaweynaysa idin dhageysanaysa dhibaatadiina ka jawaabaysa dareenkiina ka jawaabaysa hadii aan leeyahay aan wada dhisano dalkeena lama huraan waa cawska jiiraan
safarka inta ku nimiday daxalaan nimiday maanta baan joognaa maantana waxaan la kulanay dhowr hay-adood oo dowladda Ingiriiska ka tirsan bulshada Soomaalida noo balansan shirka weynaa dowladda Ingiriiska dowladda Soomaaliya dhaxmarayay oo aniga iyo ra'iisul wasaaraha kala hogaaminayna ayaa noo dhiman marka safarkeenu weli waa bilow laakiin inta maanta noo qabsantay oo ragga delegationkeena iyo qaybaha ka tirsan dowladda Ingiriiska ku wada kulmeen waa idadiiradiisu way fiican